madaxweynihii hore ee wadanka Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Paris ee xarunta wadanka Faransiiska. Master Nicolas Sarkozy ayaa loo haystaa in musuqmaasuq iyo laaluush uu qaatay intii u dhaxaysay 2007 ilaa 2012. Master Sarkozy ayaa waxa uu diiday gabi ahaanba eedeymaha loo soo jeediyay waana markii labaad uu maxkamadu hor imaanayo. cod sir ah oo laga duubay madaxweyne Nicolas Sarkozy isaga oo la hadlaya madaxda sarsare ee wadanka Liibiya sanadkii 2007 ayaa waxa lagu soo bandhigay gudaha maxkamadda. Sarkozy ayaa markaasi madaxda wadanka Liibiya ka doonayay lacag aad u fara badan oo uu ku galo doorashada, laakiin isagu gabi ahaanba warkaasi waa uu dafray madaxweynihii hore ee wadanka Faransiiska Nicolas Sarkozy. dhanka kale bishii aan ka soo gudubnay ee October ayaa sidoo kale maxkamad la hor keenay oo lagu eedeynayo musuqmaasuq iyo laaluush in uu qaatay muddadii uu hayay talada wadanka Faransiiska. Master Nicolas Sarkozy ayaa hadda eedeymaha loo haysto waxa ay noqonayaan kuwii ugu dambeeyay. haddii eedeymahan lagu waayana waxa uu noqonayaa mas'uulkii ugu sarreeyay wadanka Faransiiska ee mar soo noqda madaxweyne haddana maxkamad la hor keenay. Sarkozy iyo qareenadiisa ayaa ku doodaya in tani ay tahay arrin siyaasadeed oo wajigabax ku ah madaxweynihii hore ee wadanka Faransiiska Nicolas Sarkozy, isla markaana ay gadaal ka riixayaan siyaasiyiin uu ku sheegay in ay doonayaan in gabi ahaanba ay tirtiraan nolosha madaxweynihii hore ee wadanka Faransiiska. shirkadaha shidaalka ee wadanka Liibiya ayaa kamid ah meelaha la sheegay in Master Sarkozy uu laaluush badan ka doonayay isla markaana uu ka qaatay si uu ugu soo laabto kursiga madaxtinimo ee wadanka Faransiiska. ilaa iyo hadda maxkamadda go'aan kama aanay soo saarin kiisaska tirada badan ee loo haysto madaxweynihii hore ee Nicolas Sarkozy. marka laga reebo Alexander Lukashenko waxa uu noqonayaa Nicolas Sarkozy madaxda dhif iyo naadirka ah ee ka tirsan midowga Yurub ee maxkamadii hadda ay sugayso. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena saar subscribe si aad u daawato xog walba halkan soo dhigno.